بسم الله الرحمن الرحيم kulanti wanaagsan daawadayaal waa ayaan la geedi afraxoodana socodsiinaya wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad wadanka TV ku daawan doontaan waxa kamid ah Kenya oo dejisay dhowr tilaabo oo ay ku doonayso inay ku xasiliso inay xeer jajab wax uga hesho muranka badda cidda qura ee cadaadin karta iyo cidda ay isku haleynayso laba nin oo u kala dhashay Britain iyo Malaysia oo lagu maxkamadeynaya Muqdisho gabadhii ugu horeysay oo Soomaaliya mataraysa ciyaarta feerka iyo laadka dalka lagu qabanayo Soomaalida qaarkeed oo meel ka dhacya aan loo meeldayin ku haya fanaanada Naada Al-Qal'a araqaladaadka lagu hayo askar badan oo Kenyana oo ku dhimatay shil dayuuradeed qaar dhaawacyo daran qaba madaxweynihii gobolka Tigray Debretsion Gebremichael oo mar qura soo muuqday iyo halka loo maleynayo iyo bad Turkiga ku taala oo oksijiinkii ku yaraaday kadib markii uu weerar ku soo qaaday aljabadeed halis oksijiin lagu shubayo qodobadaasi qodobo kale ayaad wadanka TV ku daawan doontaan taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 24 bisha 6 2021 iminkana u diyaar garooba qodobada warkaas oo fidsan haddii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar wadanka TV oo program baleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino haddii saaxiibadeena nagu tixana kamid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan laegtana hanaga hilmaamina aynu ku bilowno marka hore Kenya ayaa ku doodaysa inay xadbadeedka ay la leedahay Soomaaliya la calaamadeeyay 1979 taasoo 160,000 kiiloomitir oo jibaaran oo dhulbadeed ku daraysa gayiga Ethiopia balse Soomaaliya oo aan sheekadaasi asmicin ayaa Kenya la tiigsatay maxkamadda cadaaladda adduunka 2014 wixii markaasi ka dambeeyay waxa gabi dhacleynayay xiriirka labada dal oo haatan ay socdaan wadaxaajoodyo lagu wanaajinayo balse inta sheegashada Kenya ay meel uga dhacayso xaalka uma degi doono si kama dambeyn Kenya ayaa sheegashadeeda oo nuuca ku qabso ku qadamaysid ku xoojinaysa tilaabooyin oo ay ka mid yihiin ciladeynta cadaaladnimada maxkamadda cadaaladda adduunka iyagoo farta ku godaya garsoore Cabdulqawi Yusuf oo markii laga soo tagay inuu yahay sidoo kale hadda ka hor dalka Soomaaliya matalay sida uu qoray Adichwon Soyonka oo ka tirsan The Conversation maxaa xigi doona Kenya ayaa hadda ku doodaysa inay maadaama ay gabi ahaanba ka baxday dood aafeedka maxkamadda cadaaladda adduunka aanu qusayn doonin go'aan kasta oo ka soo baxa maxkamadda cadaaladda adduunka walow sharciyan oo go'aanku sax ahaanayo xitaa haddii ay Kenya baxday inkastoo cilada jirta ay tahay in maxkamadda cadaaladda aan lahayn ciidan dhaqangeliya go'aamadeyda haddii aysan ogolaanin labada dhinac ee quseeyo dhanka kale Kenya ayaa istusay in cidda qura ee ku cadaadin karta inay go'aankaasi u hoggaansato ay tahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyadoo marayo waxa loo yaqaan diblomaasiyad dirqin uusan laftiisu shaqayn doonin maadaama ay ku doodi karto inay dacwadda ka baxday iyo in ay ka faa'iideysato galaangalka ay haatan ku leedahay isla golaha ammaanka oo ay ka mid tahay hadda Kenya ayaa dhanka kale ku doodaysa inay adeegsato dalal ay Soomaaliya isku fiican yihiin sida Turkiga iyo Qatar si ay u xasiliso in xeer jajab wax lagu siiyo waa hagaag iminkana maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa bilowday dhageysiga laba eedeysano ajnabi kuwaas oo loo haysto inay ka tirsan yihiin ururka argagixisada shabaab labada eedeysan oo ka soo hormuuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay u kala dhasheen dalalka Malaysia iyo Britain balse wali lama shaacin magacyadooda eedeysanayaasha ayaa loo haystaa inay sifa sharci darro ku soo galeen dalka iyo in ay ka barbar dagaalameen kooxda xagjirka ee shabaab oo dagaal adag kula jirta dawladda sidoo kale labada eedeysane ayaa waxa loo haystaa in muddadii ay ku sugnaayeen Soomaaliya ay geysteen tacadiyo iyo gabood fallo ka dhan muwaadiniinta ayna ka qayb galeen weerar argagixiso labada eedeysane ee maxkamadda la horgeeyay ayaa waxa ay ka mid noqonayaan eedeysanayaal dhowr oo dacwado la xiriira shabaabnimo loo haysto kuwaas oo ay dacwadooda ay dhageysigooda bilowday maxkamadda ciidamada qalabka sida waa tahay haatan Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay gabar u diraysa ciyaaraha difaaca nafsiga ee looga qayb galo Olombikada kulaalaha oo baaqday sanadkii tagay ee 2020 ayaa ka dhacaya magaalada Tokyo ee dalka Japan gabadhan ayaa ka qayb gali doonta ciyaaraha fudud gaar ahaan nooca ciyaarta loo yaqaano taekwondo waxa gabadhani lagu magacaabaa Muniira Warsame waxa ayna ku dhalatay dalka Ingiriiska iyadoo matali doonta calanka Soomaaliya taekwondo
taekwondo amaba taekwondo waa nooc ka mid ah difaacu nafsiga oo ay kuuriyaanku hindiseen waxaana ay ku dhisan tahay feer iyo laad madaxa joogiisa lala beegsanayo sida ka muuqata magaca taekwondo oo ka dhigan fanki feerka iyo laadka waa taa iminkana qaladaadka ayaa dhacdhacay soomaalida qaarkeed gabadha naada alqalca ku hayso walkeeda waxaa commenti anshaxumo ah ka dhiibta rag iyo dumar raggu waxa ay kula hadlayaan kelmado xadgudub ah sida inaan kula seexdo ayaa rabaa iyo wixii la mid ah haween iskood isku xilqaamay oo maseer jeebkooda ah iska camiirtay baa sidoo kale inkaar iyo weliba ilaaq kula kalahaa subax kasta hadda waxaa facebooka socota dood ay rag iyo dumarba wadaan oo la leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed baa ka qurxoon iyo waa isnaashnaashta ma ahane waa eberkeed sidii taayo ay iyadu tiri dumarka Soomaaliyeed baa ka qurxoonahay waxaan xitaa arkay warbixin BBC-da ay soo qaadatay oo sheeko ay ciwaan uga dhigeen haweenka Suudaan oo iscayiliintiis caddayn ku daray iyagoo soo qaatay sawirkanaada halkaasi waxaa ka caad inaan nahay bulsho hawtalhamag ah oo iska socota oo meel dalaq iska leh iyadoon xitaa isweydiin sidee iyo sabab yaan fikirna kadibna falno yaynan fikirin marka aan falna kadib waata waxa aynu soo gaarnay qaybihii dambe ee wararkii kala gedisaneed kala socoteen TV-ga caalamiga ee waddanka haatanna ilaa iyo 17 sargaal oo Kenyaan ah ayaa lagu soo waramayaa inay geeriyoodeen markii ay la dhacday diyuurad kuwa qumaatiga u kaca ah oo u duulinaysay ciidan layli ah shilkan oo ka dhacay duleedka magaalada caasimadda ee Nairobi ayaa waxaa sidoo kale ku waxyeeloobay ilaa iyo 6 askari oo dhaawacyo daran qaba dayuuradan oo ay leeyihiin ciidanka cirka Kenya ahna nooca MI-17E ayaa ku dhacday Ole Tebese oo ka tirsan degmada Kajiado sida uu sheegay sargaal diiday inay magaciisa la xigto maadaama aanu ruqsad u haysan arintaasi military Kenya ayaa walow ay xaqiijiyeen in shilkani dhacay oo ay dayuuradani dhacday misna ma bixin wax xog ah oo dheeraad ah ciidamada diyaaradda saarnaa ayaa guud ahaan gaarayay 23 sargaal xilligii ay dhacaysay dayuuradda oo aan shilkeeda la faahfaahin tahay iminkana madaxweynihii gobolka Tigray Debretsion Gebremichael ayaa mar qura lagu arkay isagoo fadhiya xafiis dayacan oo la filayo inuu ku yaalo meel ka tirsan buuraha Tigray ninkan ayaa maamulkiisu isku taagay nidaamka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo markaasi cusba isagoo isku dayay dhowr tilaabo oo qarbudaad ah oo lagu wiiqayay ammaanka guud ahaan dalka Ethiopia madaxda maamul goboleedka iyo madaxdii sare ee Tigrayga ayaa waxa dagaal u cadeystay dowladda federaalka bishii November ee sanadkii tagay kadib markii ay ciidamada Tigraygu ay weerar ku qaadeen taliska waqooyiga ee xoogga Ethiopia dagaal lagu hoobtay oo ay dad badani ku dhinteen ku barakaceen hanti badanna ay ku baxday kadib waxa dowladda federaalka Ethiopia u suuragashay in ay qabsadaan magaalooyinka gobolka walow ay weli kooxda TPLF ay duurka ku jiraan oo soo qaadaan dagaal goosgoos ah oo ku dhufo ka dhaqaaq ah waxa sidoo kale dagaalkani ku burburay qaab dhismeedkii TPLF iyo horseedkoodii oo qaar badani ay dagaalka ku dhinteen qaarna la qabtay waxaa dadka caanka ah ee la dilay ka mid ah Siyum Mesfan wasiir dabeedkii hore Ethiopia ninkii calanka maxaarada suray madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho waxa ay ahayd meeshii laga tabantaabay in Tigreegu ay Ethiopia qabsadaan iyadoo lagu bixiyay tasiilaad fara badan iyadoo ay dad badani aaminsan yihiin in Tigreegu uusan waji ka samaysan Soomaalida Tigreega ayaa hadda dacayada ay qaarbeen abuur yihiin kuwada dowladda federaalka Ethiopia iyagoo ka goosaysta reer galbeedka oo Ethiopia ku dirqinaya in ay maamulaan waxa loo yaqaano Solomonic Dynasty oo ah amxaarada iyo weliba Tigreega oo ay masiixiyad qoto dheer ka orinayaan ase yeeshee dadka u dhundaloola arrimaha Ethiopia ayaa dareensan in Ethiopia ay burburi karto haddii la isku dayo in xukunka ay mar kale xoog ku yimaadaan labada qowmiyadood ugu dambeynna Al-Jasiidi halka u samaysan oo loo yaqaano Sea Snot ayaa halis ku haya noolaha badda Marmarasi ee Turkiga taasoo keentay in ay dowladdu qaado tilaabo lagu badbaadinayo noolaha baddaasi Turkiga ayaa shalay oo Arbaca ahayd bilaabay in uu gunta badda ku bambeeyo oxygen gaaraya ilaa 30 mitir amaba 98 cagood oo hoos ah taasoo laga samaynayo 5 meelood oo ay ku jirto gacanka Kokali iyo weliba xeebaha degmada Istanbul ku taala oo Pendik la yiraahdo ujeedka waa in noolaha badan oo aan si buuxda uga furnayn badaha dariska la ah ee badda dhexe iyo Black Sea laga badbaadiyo inay oxygen la'aan u dhintaan maadaama uu ajle badeedkani uu keeno noole ilma aragta ah
oo yareynaya oksijiinka ku milan badda ee ay qaataan kalluunka iyo makhluuqbadeedka kale. Dowladda ayaa bilowday qorshe lagu nadiifinayo xeebaha gobollada Istanbul, Kokali, Bursa, Bilekser, Yalova, Kanakali iyo Tegruzak, iyadoo qorsheynta la bilaabay 8 Juun, iyadoo qalab casri ah oo 8 toddobaad la tijaabiyey loo adeegsan doono oksijiinta badan, iyadoo haddii lagu guulaysto xeebaha badda guud oo dhan la gaarsiin doono, sida uu sheegay wasiir deegaanka iyo qorsheynta magaalooyinka Murad Kurum oo la hadlay Anadolu. Qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka TV. Inta aynu ka gaarayna warka yaga xiga, waxa aan kaga tegaynaa guli gobonimo.